qoomkii iyo durriyaddii nebi nuux halaaggii biyaha ee lagu maasheeyey intii ka badbaaday dhulka ayay ku faafeen. waxaana ka mid ahaa qoom la yidhaahda reer caad. waxay ahaayeen dad dhaadheer oo xoogag waaweyn, jirkoodana aad moodaysid inuu ka samaysan yahay bir. dadkuna waa ka baqi jireen muuqaalkooda aad u weynaa. dadkan ayuu alla u soo diray nebi huud calayhi salaam si uu ugu yeero inay rumeeyaan alle, laakiin waa ay ka biyadiideen ilaa uu alla marsiiyey ciqaab. qofkii maqlay cibraqaadasho u noqotay. reer caad waxay ahaayeen dad caan ku ah dhisidda daaro iyo teednooyin aad u dhaadheer si dadka kale ay ugu muujiyaan awooddooda iyo quwadda ay dheer yihiin. wakhtigooda ugu badanna waxay ku bixin jireen cunto cunidda, ciyaaraha iyo dhismaha guryaha. buuraha dushooda ayay ka dhisan jireen goobo lagu ciyaaro oo meel fog laga arki karo. waxay dhisi jireen guryo dhaadheer oo muuq sare leh. qofba qofka kale wuxuu ugu faani jiray dhismaha gurigiisa. hantidooda dhammaanteedna waxa ay ku bixin jireen dhismaha guryaha. taariikhyahanada ayaa wariyey inay dhulka bannaan u dhisi jireen si qofku haybad u helo. guryaha ay lahaayeenna waxa ay ka tira badnaayeen baahidooda. guryuhuna waxay ahaayeen kuwa faaruqa oo faan iyo kibir iyo awood muujin loo dhiso. xilliyada abaarta waxa ay ku duuli jireen deegaanada u dhow, waxayna si fudud cagta ku marin jireen meeshii ay duulaan ku qaadaan. waxaa lagu sifayn jiray marka ay xanaaqaan inay lahaayeen xanaaqa maroodiga, oo marka uu caroodo baabi'iyo wax kasta oo awooddiisa ka hoosaysa. alla subxaanahu wa tacaala ayaa u barakeeyey dhulka ay degi jireen reer caad. xoolahoodu waxa ay daaqi jireen waadiga. dhulkooduna wuxuu ahaa dhul aad u qurux badan oo cagaar ah. waxaa ku yaallay beero soo jiidasho badan, nibcooyin badan oo dadka deegaankooda u dhow aysan haysanna way haysteen. reer caad waxay ahaayeen qoom carab ah. deegaankooduna wuxuu ahaa dhul u dhow meel xeeb ah oo la odhan jiray shaxti, oo ka tirsan deegaanka axqaaf ee gobolka xadramuud ee dalalka yemen iyo cumaan. waxa uu ahaa deegaan barwaaqo ah oo ku dhex yaalla deegaan saxara ah. dadka deegaankooda ka durugsanna aysan haysan nimcadaasoo kale. waxay noqdeen kadib halaaggii qoomkii nebi nuux dadkii ugu horreeyey ee shirki la imaada. nimcadii alla ku galladayna waa ay ku kufriyeen. waxayna samaysteen sanabyo ay caabudaan. waxaa caado u ahayd isla weynida iyo baabi'inta dadka ku deegaanka ah ee ka tabarta yar. dhagaxyada kuwa ugu adag ayay ka qori jireen asnaam ay caabudaan. isla dhagaxaasi ayay weydiisan jireen duco. waxay ahaayeen kuwo ku fogaaday shirkiga, umana muuqan nimcooyinka allah subxaanahu wa tacaala ku galladay, kumana mahadnaqin, oo allah kayrkiis ayay shirki uga dhigeen. allah ayaa u soo diray nin walaalkood ah oo iyaga ka mid ah oo ahaa nebi huud calayhi salaam. waxa uu soo xambaaray fariintii alle ee ahayd inuu qoomkiisa uga digo shirkiga, nimcooyinka allana uu xusuusiyo, sidoo kalena uu u tilmaamo inay ka tagaan sanabyada oo ay gacmahooda ku samaysteen, kana fogaadaan kibirka iyo dulmiga oo aadanaha kale ay kula dhaqmayaan, iyagoo ku faanaya awoodda jir ahaaneed oo ay aamineen inaysan jirin cid la awooda. sidoo kalena ay ka fogaadaan ku kibirka nimcooyinka dhulkooda yaalla. nebi huud nasab ahaan wuxuu ka soo jeedaa durriyaddii nebi nuux calayhi salaam. abtirsigiisana wuxuu noqonayaa huud ibnu shaalax ibnu afraqshanda ibnu saam ibnu nuux calayhi salaam. culimmada qaar sida ibnu kathiir iyo ibnu jareer ayaa iyaguna ka dhigay abtirsiga nebi huud inuu ahaa huud ibnu cabdilaahi ibnu rabaax ibnu caad ibnu cusaa ibnu iram ibnu saam ibnu nuux calayhi salaam. waxa uu ka dhashay reer caad oo ahaa dad carab ah. nebi huud waxa uu ka mid yahay 4 nebi ee asalkoodu uu carab ka soo jeedo, kuwaasi oo kala ah huud, saalax, shucayb iyo nebi maxamed. naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. qoomkii reer caad waxay ahaayeen kuwii ku xigay qoomkii nebi nuux calayhi salaam ee loo diro rasuul. inta badan qur-aanka markii ilaah subxaana wa tacaala uu ka warramo qoomkii nebi nuux waxa uu ku xejiyaa qisada reer caad ee loo diray nebi huud, maadaama ay ahaayeen dadkii ku xigay ee rasuul loo diro iyo kuwii ku xigay ee shirki iyo caasinimo allah ay ku caasiyeen subxaanahu wa tacaala dartood loo halaagay. waxay lahaayeen sanabyadii la kala odhan jiray sad, samuud iyo hir. waxayna ugu goodiyeen nebi huud inay dili doonaan haddii uu mar kale ilaahyadooda ku tilmaamo sanabyo aan waxba gelin. markii allah subxaanahu wa tacaala uu huud faray inuu qoomkiisa fariinta gaarsiiyo sida rasuulkii ka horreeyey ee nuux, waxaa markiiba ka soo horjeestay odayaashii reeraha iyo dadkii kuwa kale ku boorin jiray caabudidda asnaamta. nebi huud calayhi salaam wuxuu xusuusiyey nimcooyinka allah subxaanahu wa tacaala ku manaystay ee ugu sahlay inay dhistaan guryo iyo qasriyo aysan baahi u qabin,
iyaga oo aad mooddo inay adduunyadan ku waarayaan. Wuxuu xusuusiyey qisadii nebi nuux iyo sidii loo halaagay qoomkii nebi nuux. asnaamtan ay gacmahooda ku samaysteenna aysan dhib iyo dheef midna u haynin, shirkiga iyo gaalnimadana ay kaga tagaan una laabtaan allihii abuuray kana sara mariyey dadka kale. Waxay ugu jawaabeen, huudow, waxaa tahay beenaale, waadna jiran tahay, waxa ku asiibtay caradii ilaahyadeenna. oo ay ula jeedaan sanabyadoodii. Nebi Huud calayhi salaam waxa uu ku yidhi, ma jirani, carana ima asiibin, ee waan idiin nasteexaynayaa, ee i rumeeya, oo qaata diinta aan idinla imi, oo ka timid Rabbiga abuuray cirka iyo samooyinka iyo inta ku dhex nool, idinkana idin siiyey nimcadan. Mar kasta oo uu dacwad ugu tagana, hal jawaab ayay siin jireen, taasoo ahayd, kuma rumaynayno, kamana tegayna sanabyadeena. Nebi Huud, tallaabo kasta oo uu qaado iyo si kasta oo uu wax ugu sheego reerkiisa waa ay ka diidayeen. Isla weynidooda ayaa mar kasta tusaalaynaysay inaysan farriinta u wado aysan qaadanayn. Dad yar ayaana rumeeyey dhambaalkii Nebi Huud calayhi salaam. Mar walba oo carada alle ay ka dhalan karto shirkiga uga digana, waxay si kibir iyo isla weyni ku jirto ugu dhihi jireen, noo keen cadaabka aad ku goodinayso, cid naga xoog badan oo na burburin kartaa ma jirto. Isaguna waxa ugu jawaabi jiray, alle waa awood badane, ee caradiisa ha dalbannina, balse waxa ay ku adkaysteen haddii uu ciqaab hayo inuu la yimaado. Nebi Huud calayhi salaam markuu ka quustay qoomkiisii, waxa uu alle weydiistay inuu u gargaaro isaga iyo inta rumaysay. allana wuxuu ku yidhi, dhowaan ayay ka shallaayi doonaan. Muddo kadib waxaa ku dhacday caradii alle, waxaana dhulkooda haleeshay abaar kulul oo roob la'aan ah oo socotay muddo 3 sannadood ah. Waxaa guray webiyadii, cuntadiina waa ay ka yaraatay, gaajada iyo baahidiina waa ay ku badatay. Abaartii markii ay u adkaysan kari waayeen ayay baryeen sanabyadoodii, iyaga oo weydiisanaya roob iyo biyo, balse waxba uma kordhin karin dhagax iyagu ay gacantooda ku samaysteen. Abaartii kadib waxaa dushooda hareereeyey daruuro madow oo u eg kuwa roobka sida. Waxay u maleeyeen in sanabyadoodii ducadii ka aqbaleen oo roob u du'i doono, balse daruurahani waxay ahaayeen kuwo masiibo iyo halaag u sida. Waxaa yimid roob wata dabaylo iyo dhagxaan, qof walba gurigiisii ayuu ku cararay. Alle subxaanahu wa tacaala ayaa ciqaab uga dhigay inuu u soo diro dabaylo awood wata si loo tuso inaanay awooddoodu meel jirin, maanta oo kalena aysan badbaadin karin. Waxaa haleelay dabaylo iyo duufaanno aan cidnaba reebaynin, taasoo madaxa qofka iyo jirka intiisa kala jaraysay, guryahana ku duminaysay. sidaasi ayaana lagu halaagay qoomkii kibray ee reer Caad. Ilaahayna waxa uu badbaadiyey Nebi Huud calayhi salaam iyo intii rumaysay. Gaaladiina caradii alle ee ay dalbadeen ayaa la tusay, laguna halaagay. Sanadkii 1992 dayax gacmeedyada NASA ayaa sawiray haraadiga magaalo burburtay iyo dhismayaal dhagaxa oo ku dhex yaala meel saxaro ah iyo buuro oo Yemen iyo Cumaan u dhaxaysa. Fasiraad iyo micnayaal badan ayaana laga bixiyey, kuwaasi oo u badnaa inay ahayd halkii deegaanka u ahayd laguna halaagay reer Caad. Waxaa laga helay raadad taariikheed iyo haraadiga dhismayaal adag oo dhagax ah. Dhulkuna wuxuu ahaa meel saxaro ah oo wax deegaan ah uusan ka agdhoweyn. Nebi Huud calayhi salaam markii uu geeriyooday, waxaa aasay dadkii rumeeyey ee ka badbaaday halaagga. Waxaa jira meelo badan oo la sheegay inay yihiin halka uu ku aasan yahay Nebi Huud calayhi salaam, sida qabri weyn oo lagu xardhay dhagax cad oo ku yaala magaalada Xadramuut ee dalka Yemen, oo u dhow halkii qoomkiisa deegaanka u ahayd. Sidoo kale goobo kale oo ku yaala Sacuudiga iyo Urdun ayaa iyagana lagu sheegaa inuu ku yaalo qabriga Nebi Huud. Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما